maamulka gobolka Banaadir ayaa waxa uu ka jawaabay cabasho ay soo gudbiyeen shacabka degmada Warta Nabadda oo ku aadaneed dhibaato ay ku qabeen mid ka mid ah wadooyinka waaweyn ee degmada ayaa caawa waxa kormeer ku tagay gudoomiye ku-xigeenada howlaha guud iyo maamulka iyo maaliyadda gobolka Banaadir waxayna ballan qaadeen in cabashada shacabka uu si degdeg ah maamulka gobolka Banaadir wax ugu qaban doono. qaar ka mid ah shacabka degmada Warta Nabadda oo la hadlay warbaahinta ayaa ugu mahad celiyay maamulka sare ee gobolka Banaadir sida degdeg ah ay cabashadooda ugu soo jawaabeen iyo kormeerka caawa ay ugu yimaadeen gudoomiye ku-xigeenka howlaha guud Cumar Cali Cabdi iyo gudoomiye ku-xigeenka maamulka iyo maaliyadda gobolka Banaadir Axmed Iimaan. عمر فينش وانين عدو معسن وانين قدوبية وخلمة وانين حبشية يدي سيد دقيقة وسجل كي نوصف المدين ويكون مهد سيين الهبينكي أيضا واجب برين الكيس الجو هرتاد يا أبو محمد علنا قبل كبنادر مدحيس هو سر قدوميها قبل كبنادر عمر محمد عمر فينش قدومي كحجينكي أرمها مالية أو حدنا للجوجا قدومي كحجينكي هؤلاء جود أسجنا للجوجا gudoomiye ku-xigeenkii degmada ee Wardigle Warta Nabadda oo nala jooga waxaan aad uga mahad celinaynaa inaan ka diyaarin wanaagaas ee noo qabteen oo habeennimadii ay ka jawaabeen saacadaha u dhaxeeya boqolkiiba boqol gobolka Banaadir waxaan uga mahad celinaynaa cabashadeenna ee habeennimo noo soo jiireen boos dhexdeedii oo aan maanta istaagnayn inay la istaagayeen maanta waa wax lagu farxo waa wax looga hambaliyeeyo waa wax aan maartay dhabarkeena in la jiro nal ka dambeeyo maanta aan ku jiifanayno boqolkiiba boqolna waa mahadsantihiin. gudoomiye ku-xigeenka howlaha guud ee maamulka gobolka Banaadir Cumar Cali Cabdi ayaa sheegay in maamulka gobolka Banaadir uu taagan yahay ka jawaabida cabashada shacabka caasimadda waxa uu xusay in si degdeg ah wax looga qaban doono dhibaatada ay ku qabaan wadadan shacabka degmada Warta Nabadda. waxaan idinku soo gaarnay kormeer waxaan soo gaaray cabashadiina cabashadaas oo ahayd in laamiga burbursan yahay annagoo ka socono gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna doq magaalada Muqdisho Cumar Maxamed Cumar Finish oo nagu dhiirigeliyay inaan habeenkan caawa waqti dambe idin imaano annaga idinka soo kacsanay guriyihiina iyo meesha hadda fadhisaan oo idinku leh maaragtay cabashadiina na soo gaarsiiya degmada hore laamiga waa loo imaaday waxaan rabaa birrifir inaan ka bixiyo laba option oo maamulkii shaqada meeshii uu ku hayay waa muhiim inay dhisan tahay waxay maraysaa gabagabo feeskii saddexaad inay joogtaan jeclahay ayadaasna waa insha Allah mar dhow waa arkaysaan degmadii oo sida hore si ka qurux badan u dhisan insha Allah waa idin furayna ayadana midda labaad laamigan waxaan keenay injineeradaas waxaan ugu talagalnay inay qiimeeyaan injineeradu waa qiimeeyeen warbixin ay nagu soo celiyeen warbixinta ay nagu soo celiyeen waxay qaadanay waqti in la fuliyo sababtoo ah waxa galayo qarash fara badan galay laamiga waa burbursan yahay xilligii waxaan u maleynaa dawladii gacanka ugu dambeysay aadoon hadda u burbursan yahay baaqa caawa aan la joogi weynay oo aan rabnay inaan ka jawaabno waliba idin ma dhaheena caawan microphone iyo camera idinka duubaheena in meedkii meelaan marsiinaan weynaa dhahdeen in maaragtay meeshaan aan idin labeeleeno oo caadigeeda aan ku soo celino caadigeeda markaan ku soo celinana insha Allah feeska labaad waxaan sameey doonaa in qarashkii aan ugu talagalnay in maaragtay dawladihii aan la kaashanaynay iyo dadka deegaanka iyo maamulka gobolka Banaadir oo isgarabsanay inay dhameystiraan meeshaan waxay u baahan tahay in laga dhigo shub in laga dhigo u baahan tahay gudaha in laga soo aasaaso kadib laami ahaan laami inta lagu fidiyo jaayna lagu shubo oo ma baahno insha Allah waxaan idin sameey doonaa in meeshaan gaarin oo mari karo meedna laga bixi karo ilmana aysan wax ku gaari karin dhiig joojin degdeg ah annagoo wakiilka ah gudoomiyaha gobolka Banaadir. kormeerkan ayaa waxa uu imaanayaa iyadoo gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho mudane Cumar Maxamed Cumar Finish uu amar ku bixiyay in si degdeg ah looga jawaabo cabashada ka imaanaysa shacabka caasimadda wadadanna waxa ay kamid tahay wadooyinka halbowlaha u ah socodka dadka iyo gaadiidka ee degmada Warta Nabadda waxayna isku xirtaa isgooska geed jecel iyo xarunta degmada Warta Nabadda.